السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا idin salaam asxaabteeda adduunka meel walbaad ka joogtaan. Kusoo dhawaada channelkeena Muna Soom waa walaashina Muna. Waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad ii caafimaad qabtaan biidnillaahi alkariim. Maanta waxaan idinla wadaagayaa vlog oo iskuulka insha Allah. Iskuulkii ayaa lee furay marka xagga iskuulka ayaan aadeynaa biidnillaahi alkariim. Waxaan jeclaystay marka in aan idin wado oo aad i raacdaan iyo maalintii waxyaabaha aan qabto. Marka saake ayaan gelinka hore ayaa maanta iskuulka leega rabay. Subaxdii alasay ayaan soo baxay. Marka alaabteedii iyo quraacdii iyo wax dhan waan soo qaatay. Xagga iskuulka insha Allah ayaa ku cuni doonaa. Qaxwo ayaan sii gatay oo aan ku sii tago. Iskuulkeena waa kana jaamacadda maasha Allah. Qorax ayaa jirto maanta inaga caadi ma ahan. Qoraxdu waxaa waaye dadka farxad ayay ka helaan. Waxaa waaye firfircooni badan ayaa la dareemaa. Marka qoraxda waan ku haystaa aniga waxaan sii jeclaan lahay idin sheeg inaan qorax aan ku dhamaysano semesterkani insha Allah. Waxaan soo socday waxaan soo orday hadda waxaan imaaday fasalkii ayaan imaaday. Macallimiinta ayaa khudbad inoo soo jeedinaya. Khudbadaasi ayaan dhageysanaynaa, bareeg ayaan qaadanaynaa, haddana waa lagu soo laabanayaa. Cashir ayay insha Allah inoo sharxayaan. Marka maanta waxaan idinla wadaagayaa gelinka hore jaamacadda markaan aado iyo waxyaabahan qabto iyo markaan ka imaado iyo hawsha sidaan u qabto. Marka saaki maadaama alasay gurigii aan ka soo baxay, haddana waxaan joogi doonaa iskuulka ilaa adiga xilliga qadada ayaan joogi doonaa. Qadada kadibna waa kan hadda guriga ayaan imaaday. Caruurta intaanan doonin ayaan waxaan rabaa qado. Qadayaanan dhihnay casho waxaan rabaa inaan kasoo tuuro. Marka maadaama saaka aan baxay waxaa waaye anigana banaanka ayaan kasoo qadeeyay, ayagana waxaa waaye iskuulka ayay kasoo qadeeyeen. Marka casho ayaaba ugu horeyso cuntada kale aan wada cuneyno. Marka waxaan imaaday xilli fiican ayaan imaaday. Waxaan rabay marka hal mar casho yaroo kulul oo macaan inaan kasoo tuuro. Cashadaani waa very tasty, aad iyo aadna u fududahay, aad iyo aadna way macdahay. Basashii iyo toontii waan isku soo shiilay, wax yar saliid iyo barbarooni. Markay si fiican dhexda iska galeen waxaan ku shubi doonaa malaay. 2 gasac malaay ayaan kusoo daray. Saliidii waan kasoo miiray maadaama already saliid aan kusoo shiilay toontii, basashii, barbaroonigii. Hadda saliidii waan kasoo bixiyay marka waan yaryareyn doonaa. 1 gasac way kugu filan tahay haddaa reer yar aad tihiin. Maadaama 2 aan kariyo aniga waxaan rabaa inaan badiyo. Birin waxaan rabaa insha Allah inaan qada aan ka dhigto maadaama iskuulka aniga aan aadayo. Caawana ma rabo inaan jiko kale aan galo. Marka qadadii cashadii maanta ayaan badinayaa oo suugada qayb yar ayaan reebanayaa si biri aan iskuulka aan ugu qaato qada ahaan. Marka xawaajiyadii ayaan kusoo dardarayaa wax yar maraq digaag, wax yar huruud ma ahane xawaaji kaari ka waa sorry. Xawaaji kaari iyo xawaajiyada kala jeceshaad ku darsanaysaa. Markaad ku darsatid kadib cream ayaad ku daraysaa. Bariiskan waxaa waaye waan soo dhaqay digsiga ayaan ku shubay. Bariis cad ayaan rabaa marka insha Allah. Waxaan ka bilaabay marka caanaha creamka ayaan ku daray. Waxaan kaloo ku dari doonaa crème fresh sida u taqaanaan ama sour cream aan u maleynaa luqada Ingiriiska lagu dhaho. Intaasi labadaasi cream ayaa marka isku soo qasayaa. Qadadii waaba diyaarbo. Cashadii waa diyaar suuri asxaabay. Cashadii waa diyaar saan ayay ku soo baxday. Wax yar waxaan sugayaa marka ilaa si fiican inay dhexda iskaga gasho ilaa 2 ilaa 3 daqiiqo ayaan rabaa inaan huuriyo. Kadibna waxaa waaye cashadina waa inuu diyaar. Caruurta ayaan waan ordaa. Caruurta ayaan doonayaa. Kadib waxaa waaye casho ayaaba loo fadhiisanayaa. Waa kan asxaabay kusoo dhawaada cashadeena oo 1 iyo 2 leeb lagu kariyebo. Waa arkayseen markaan karinayo suugada. Bariiskana waa bariis cad. Digsigeyga ayaan ku karsaday. Qudaartiina waa kana geeska ayaan kasoo saartay iyo jeex yar oo liin ah. Sidaan ayayba ku dhamaatay cashadii. Alxamdulillah intaan haysan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha siiyo. Inta haysatan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u barakeeyo. Biri qadana waa ka sii rabta maadaama birina subaxii aan baxayo biidnillaahi alkariim. Hadda waxaa waaye caruurtu iska sii ciyaarayaan. Cashadii kadib waaye anigana waxaan rabaa hal mar inaan hawsha gacanta aan wada mariyo oo aan iska boobsiiyo maadaama subaxina aan maqnaay. Ii sheeg cashane aan guriga aan ku kariyay. Marka meeshii lagu casheeyay ayaa rabaa insha Allah inaan iska soo nadiifiyo. Guriga dhan waxaan rabaa insha Allah gacanta in aan mariyo maadaama haddana biri aan baxayo. Waxaa waaye routiinkii dhan wuxuu isku soo kusoo koobmay habeenkii inaan shaqada aan iska qabto
oo subaxii markaan baxayo guri ii diyaarsan oo carafsan inaan ka tago biidnillaahi alkariim. Marka hadda miiska ayaa waxaan ka gurbinayaa cuntadii ee caruurta ay ku daadaadiyeen ayaan ka gurbinayaa. Kadibna waxaan soo qaadanayaa istiraashadeedii waan soo tirtiraa macal dhulka. Waxaan rabaa insha Allah inaan huufareeyo oo guriga dhan hal mar aan gacanta aan wada mariyo. Labadan week kuley aniga iskuulkii ayaan ku mashquulay oo 2 week oo waxaa ii socotay insha Allah koorso oo intensive ah oo laga rabo inta badan yacni iskuulka in aan joogo oo aan soo xaadiro. Marka saas ayaan u mashquulay asxaabay. Idinkan ii warrama soo ma fiicnidiin iskuuladii shaqadii ma ku laabateen arrinka yacni xaguu idin marayaa rutiinkii waxaa waayay weli gacanta miyaad ku haysaan mise iskuuladii iyo shaqadii markii la bilaabay waxaa waaye asigana dhexda ayuu ka soo baxay. Insha Allah commentiga igu soo wada qora. Miiska markaan soo tirtirin hadda waxaa waaye kuraasti ayaa dusha yacni ka saarayaa hoosta ayaa rabaa hal mar inaan iska huufareeyo. Maanta ma ahan maalintii aan tirtirayay just waxaa waaye nadaafadii kale oo caadiga oo boobsiiska ahaay oo speed cleaningki ayaa loogu talagalay. Marka hadda waxaan imaaday fadhigii waxaan rabaa fadhigii ii sheegay barkimanka hal mar inaan iska toosiyo oo aan iska hagaajiyo. Kadibna waxaa waaye miiskana gacanta ayaan marinayaa. Gacanta markaan mariyo hawshu way isku dhamaato. Waxaa waaye huufar kaliya ayaa ii dhiman. Marka huufarkaan ka bilaabo fadhiga waxaa ilaa dhexda ilaa jikada ilaa qolka caruurta kulli yacni waa soo wada huufareynaa si guriga maasha Allah inta yaraay oo la isticmaalay ama lagu soo socday ama wasaq yar soo gaartay. Insha Allah huufarkaas ayaan rabaa inaan wada mariyo. Kadibna waxaa waaye hawshu way ii dhamaatay. Jikadina maasha Allah hadaaya ayaan iska soo hagaajiyay intaanan caruurta aanan doonin 4 xabaan cashada aan ku kariyay maasha Allah gacanta ayaan soo mariyay. Haddana waa kana waxaa waaye huufarkii ayaan soo qaatay guriga oo dhan gees to gees waan soo huufareynayaa. Markaan soo huufareeyo aniga iyo shaqo waxaa waaye alxamdulillah waan kala falxaranay. Caruurta ayaan rabaa insha Allah inaan rutiinka caruurta inaan hadda bilaabo oo ayagaan soo seexinaa. Kadibna waxaa waaye insha Allah waxaa la gaaray xilligii anigii aan nasan lahay. Kadibna waxaa waaye xilligii aan casharadeedii iyo aan akhrisan lahay ii sheeg casharadii iyo xagga iskuulka iyo beri insha Allah waxaan u baahanahay in aan isdiyaariyo. Hawshii markaan soo qabtay caruurtii aan seexiyay wax yar nasaan isdhahay waxaa waaye maasha Allah hurdo yar ayaaba gashtay caradii oo madow ayaan soo kacay. Salaad kadib markaan tukadan waxaa waaye waa isa soo xaadiriyay koobkayga qaxwada muuqaalaha in aan la yaro biyo kale insha Allah insha Allah waxaan ayaan bilaabayaa xiiseynaysan insha Allah saxay aad ayaa muuqaalkan halkan hadii aad soo gaartay waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.